بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkaan inaan ka soo jeediyo gabaygii aan ugu tala galay nidaamkii xaaraanta ahaa ee 4.5 ama 4.5 بسم الله الرحمن الرحيم diiwaanka suugaanta waa duxiyo taariikh dhaxaan dib dhigay oo murtidu igu daharayday marba aniga oo daayay baa waxay dhaqmayaan daqoowiyo aqoonyahanba waa layna durayaa dad baa ina wakiishiyo bulshadii duubka noo xiray marna inaan daciif qaadanaan duray la dhowrayn marna inaan daciif qaadanaan duray la dhowrayn damaaciga xun Soomaaligu kala dilayaa ee gobonimada dhaxalaysatay iyo xaq la diidayo dambay noqotay deelayda gabayana ku deeqay ka durduurta dad soo rubiyo deeqliya timid Soomaali duladiyo ujeedada haddaan diirka ka cadayo Soomaali dood baa dhextaal doorashada dhow nin waliba wuxuu damacsanaa soo dayaafadi doqoniino waa shacabka oo lagu danaystaa dalabtiyo siyaasadda ninkii dagani waa mooge duugeeda nimankii lahaa looma durxulo dirdir iyo qabiil horeyba waa kiina daashaday afartii la diid iyo shantii la isku duutiyey dawadeedu Soomaali waa xaq iyo deegaan dawadeedu Soomaali waa xaq iyo deegaan nin kasto dunida bal waa meel qabiil door ku leeyahay dulmi way xaraana iyo kudiyo daacuun nin kasto dadaal ugu jiraan duxii ka raacayn dareen weeye Soomaaliyay dib u dhacna daris iyo dal iyo dawlad iyo diin ma waafaqo dambi niman galeen buu ahaa lagana soo dog dib baan wacda le reer Puntland dad u yeelayn dad midaysan iyo waxaanu nahay maamul dawliya daqiiqadana loo did xil kale loogu sii daro degmayso Soomaaliya reer ku daabanaya dunida u bandhigay caalamkuna arag dariiqi dudada beesha iyo unadu waa inay ka doodaan dudada beesha iyo unadu waa inay ka doodaan dumar iyo duq iyo wiil yar iyo dadka dalkan deegaan wax lagu qabsado dirita mooyaane diinta ku dhaartay qabiil dooni mahayaan dad matali kara iyo waxa tiin door la soo xulay dirirtaanu waa maalintii la idin duufsado hadegdegina waligin rag baadan isku haysaan nin kasto dareen yari ku jiray weydin dayaya daldaloolna ka ilaasha waa dood masiiriya dacwad kalena waa xamar midaan ugu digayaa inaan dawladaydaas wato diido hadalkiina iyo inuu xal deegaanku yahay deeqa shacabkeena midun doorta yaan koonfuray dawgu kaalon midun doorta yaan koonfuray dawgu kaalon intaas ayaan page kala koowaad ku soo koobi doonaa gabayada looga hadlayo nidaamka xaaraanta ah ee 4.5 waxaan leenahay